بسم الله والحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام ولا ليال إن شاء الله وحروا معتنا موضوع ير أنا هل كان كسوق بإذن الله. موضوع عاس أو رمانتين أنا تابنيا كوالد أهان كمجتمع أهان ما ركتي سيدا أوهرتي لهان سيدا إسرائيل إلى لهان خطرت عدنا وإيمانيسو موضوعaas oo ah ilmaha yaryarka ah oo loo geysto falalka xun ee argagaxa leh taxarushka jinsiga ah ama maxaa la kufsiga ama dhibaatadaas oo dhan loo geysto ayaan doonaynaa biidnillah maanta inaan wax yar ka dhehno. waxa la dhahaa ma doonayn inaan ku dheeraado, waxaan rabaa inaan maaragtay soo koobo biidnillah. waxa la dhahaa ma ka sheekeynayo waxyaabihii ugu dambeeyay dhacay iyo maxay u dhaceen iyo halkay ka dhaceen iyo yaa sameeyay iyo waxaas oo dhan maxay tahay ma ka hadlayo. laakiin arrintan waa arrin dhammaanteen nagu wada dhici karta. waa arrin soo dhici jirtay oo maaragtay loo aamusi jiray oo maaragtay guryaha ka dhici jirtay oo ilmaha yarka banaanadaas maaragtay wax lagu faraxumeyn jiray, haddana sida oo aamusneen oo u lahayn Soomaali baan nahay sidaas ma sameeyno ama sidaas wax ma noqdaan ayaa wax badan hadda soo baxayaan iska soo daba dhacayaan. Soomaaliya xayndaabkii ku jirtay waagi hore kaliya kuma jirto, social media yimid, dadkii qaar baa wadamo kala tegay oo la soo dhaqmay soo laabtay. wax kasta oo maaragtay xumaan iyo samaanba waxa lagala socdaa maaragtay social media ama maaragtay meelaha itisaalka ama maaragtay lagu xiriiro. marka wax kasta way fudud yihiin wixii wadanka la ka dhici jiray oo marka maqashid qariibka kugu noqon jiray oo aan dhihi jirnay oo anaga waa ka caafimaad qabnaa waxaasna ma soo gaaraan. Soomaalidu waa dad wanaagsan, Soomaalidu waa dad sharaf leh, Soomaalidu saa kuma dhaqanto. dee Soomaalidu waa dad wanaagsan laakiin ma wada wanaagsan. dad wanaagsan iyo dad xunna way leedahay. dad wada wanaagsanna ma ahan, dad wada xunna ma ahan. marka waxa imaanaysa wax kasta in maaragtay la arko qof inta la kufsado la dilo, ilmo yar la faraxumeeyo maaragtay yani aan cidi u hunguriyoobin, waxyaabo badan baa arkaysaa sababtoo adduunku uu isu furan yahay. intaas kadib waxaan يعني حاجين وقع إيمان كران محاك جهرتي كرنا والدك المها دلي والد كست علمه إنه إلالية مسؤوليات بكسارا إلالي أنتم ما أهن تبتشوك وحبرشة هودر وقولوا وكحر ما أهن لكن المها وعي قلي وعلى الأقل مارت الدرين ها يستوين الشرام ضد دوني إنه حماك سمعيان إله نو إلالية المها أصلا وحالة لها ضدك المها تحرشك كسمعية أما مارت اللي كسمعية boqolkiiba 80 waa dadka ilmaha ku yani xayndaabka maartay ku xiriirsan dariska maxaa la dhahaa dugsi quraan ku dhiganaya ama madaarista maartay ibtidaa'iga ah. ilmaha markuu weynaado waxa lagu sameyn karo, laakiin intuu yar yahay oo dugsi hoose dhiganayo ayaa laga yaabaa madrasada inay ka soo gaarto dhibaato. haddii noqon lahayd ardayda waaweyn iskuulka la dhigata, haddii noqon lahayd dadka barayaasha wax baraya naftirkooda, haddii noqon lahayd dariska, haddii noqon lahayd qaraabada, yani dadkaas u dhow oo arkaya way dhici kartaa waxyaabo emergency ah oo maartay ilmo la dafo oo kale, ilmo meel cidla laga helay oo kale. laakiin siday u badan tahay adduunka dhan research baa la sameeyay, dhibta ugu badan oo ilmaha soo gaarta boqolkiiba 80 waxay ka soo gaartaa dadka ku maartay ku dhow. okay, marka anaga Soomaalida ma sha Allah waa dad aad iyo aad u wanaagsan, waa dad qaraabada xiriiriya. haddaanan ka maarmin inaan qof qaraabada guriga keeno ama qaraabada isla noolaato ama guriyihii la isla dego, waxa loo baahan yahay ilmahaaga inuu wacyi gashan yahay. waagi hore gabdhaha bas baa loo baqi jiray, laakiin hadda gabar iyo wiilba waa inuu ilmahaaga wacyi gashan yahay. waa inaa ilmahaaga bartid in amaartay jirkiisa cidna taaban karin, cidna inaysan xaq u lahayn inay jirkiisa taabato. waa inaa bartid hadday wax ku dhacaan guriga dhexdiisa inuu qayliyo, haddii meel kale ay kaga dhacaan oo maartay ilmaha sheego. waa ina ilmahaaga saaxiib lata. ilmaha haddaad dishid oo maartay cunfi kula dhaqanta adana naftirkaaga oo dhibaataysid oo dhihid dhib cid kale kaa soo gaartay iisha kuuma sheegayo, sababta uu kaa baqayaa. markasta waxaa hor imaanaysa su-aal ah okay ama lagu dhahaa adi maxaa halkaas ku taagay, ama lagu dhahaa maxaa saa u sameeyay wada, ama lagu dilaa ma imaanayso. yani inuu maartay ilmihii uu wax kasta kuu sheego. marka waxaa loo baahan yahay ilmaha marka hore inaa kalsooni ka samaysano, ilmaheena inaa maartay maxaa la dhahaa
aan u dhawaano aan la saaxiibno aan dhino qofkii dhib kuu geysta qofkii maaragtay saa kugu sameeya qofkii ku taabta qofkii xumaan kula soo aado kulliba iisoo sheego inaad dhehdeed markaas ilmahaagu waxay u badan tahay inuu aamin yahay sababtoo waa ilmo wixii lagu sameeyo sheegaya intaas kadib macallimiinta macallin kasta ilmaha xumaan kuma sameeyo aslanna macallimiinta naftirkooda laba loo kala qaadaa macallin iyo mudaris qof macallin ah oo u tarbiyeysan inuu ilmaha soo saaro sida ilmihiisoo kale iyo qof mudaris ah oo ilmaha waxa buugga ku qoran uun baraya oo maaragtay isagu maaragtay soo shaqo tagay oo lacag ahaan waxbarashadan usoo aaday laakiin ilmaha mustaqbalkiisa iyo inuu meel ka soo baxo iyo wanaagiisa aan midna danka lahayn siday u badan tahay ilmaha macallin waxba kuma sameeyo ilmaha waxa wax ku sameeya qof mudaris ah oo doonaya inuu waxaan maaragtay qutulyoom kiisa kasoo saarsado oo ilmahan aa ujeedin danna ka lahayn mustaqbalkiisa intaas kadib ilmaha badanaa yani waxa dhacda in hooyada ee gabar ama ilmo wiil oo macallin ku dhaho xilli aan xilligii dugsigu furan yahay ahayn imow waxaa laga yaabaa inuu dhaho waxaa iisoo qaad oo gurigayga iigu keen waalidku inuu ka ogolaado ma ahan macallinka intuu dugsigu furan yahay oo ilmaha ay wada joogaan unbuu ilmahaaga joogi karaa xilliga caadiga oo ilmaha kala joogaan unbuu joogi karaa xilli dheeraada oo inaad dhahid macallinka hadduu ku dhaho dugsiga ku har ama xilligaa imow ama ardayda kasoo horree ama ka dambe ha ka yeelin waa inaad ku dhahid ilmahana hadduuna anaga gudaha iyo guriga ka wacyigelin banaanka khatar kastaa kaga imaan karta sababtoo ah ma dhiirana iskama ilaalinayo dadka dhan wuxuu moodaya inay isku mid u wada yihiin macallinka badanaa ama qofkaas maaragtay baraha isku sheegaya oo ilmaha dhibaatada ku keenaya saldana buu haystaa yani ilmaha wuu ka baqayaa ilmaha hadduu wax ku sameeyo ma sheegayo yani wuxuu isdhahaya macallinka wuu ku dilayaa marka waxyaabo badan oo waxaa jira u sahlaya inuu ilmaha intuu macallinkii wax ku sameeyo uu sheegi waayo okay ilmaha marka wax lagu sameeyo sidee lagu ogaan karaa ilmaha habeenkii wuu qarwayaa ilmaha wuxuu noqonayaa ilmo muncasil ah oo dadka ka go-an oo markasta cid la fadhiya oo carruurta la ciyaaran ilmuhu wuxuu noqonayaa madarasada diida ilmuhu wuxuu noqonayaa markasta iska fikiraya ilmuhu wuxuu noqonayaa isku kaadinaya liannu nafsiyan buu u xanuunsanaya waxaa laga rabaa waalidka markay arkaan ilmaha inuu maaragtay waxyaabahaas ay ku dhacayaan ama habeenkii isku kaadinayo ama shardi ma ahan ilmo la xumeeyey bas yani farax xumeyn kaliya inuu ilmaha isugu kaadiso ilmaha dirta iyo canaanka iyo bahadilada iyo waxaas oo dhan waxay ku keentaa inuu isku kaadiyo habeenkii marka waa wax nafsiyan la xiriira marka ilmaha waa ina fiirisid ilmaha habeenkii ma qarwaya ma qaylinaya ilmaha ma iska ooyaya ilmaha maaragtay dabeecadii baa ka xumaanaysa daqdi buu dareemaya because of ilmihii dhib baa lagu sameeyey xanuun buu dareemayaa qalbiga ah iyo jismiyan iyo qalbiyan buu u xanuunsanayaa mana sheegi karo ma gudbin karo because of wuu baqayaa dadka marka waxaa la dhahaa badanaa ku sameeya ilmaha taxarush jinsiga ama dhibaatada u geysta waa dad yaraantoodii loogu soo geysan jiray oo xanuunsanaya xanuunkay xanuunsanayaan nafsiyan markii iyaga dhib lagu sameeyey maysan helin qof ka caawiya maysan helin qof maaragtay dhakhtar looma geynin lama caawin sidiibu isagoo ku bogsaday kadibna waxaan wuxuu rabaa inuu ku sameeyo dadkii maaragtay kaleeto ilmihii kaleeto marka maxaana looga baahan yahay hooyada inay wacyigeeda aada u sareeyo ilmaha haddii aa awoodid dugsiga gee oo kasoo celi haddii aa awoodid haddii kale ilmahaaga maaragtay wacyigiisa waa inuu kor u qaadan yahay qof qariiba haddaa artid ka carar qof kuu dhow oo maaragtay ama ehelka ama maaragtay kamid ah qaraabada ama maaragtay iska ilaali ka fogow dadka ugu badan oo ilmaha wax soo gaarsiiya waa dadka basaska ku qaada dadka meelaha waxbarashada ugu dhow deriska dukaamada yani waxyaabahaas inaga markii la fiiriyo soomaalida way nagu yaryihiin qofka dukaanka ugu xiga ninka leh maybe inuusa ilmahaaga yani waxba ku sameynin ama dansaasi ka gelin oo maaragtay uu qof wanaagsan yahay laakiin adduunka dadka soomaalida kale oo ku nool meelahaas yani ilmaha dadka camaaradaha meelaha aad degantihiin guryaha nimanka waardiyaasha ka ah nimanka haddii jiraan gaari idiin wado ilmaha gaari ku wada haddii jiraan maaragtay yani waxyaabahaas oo dhan ilmaha waxaa looga baahan yahay in laga fiirsado oo laga feejignaado oo indhaha la furto oo ilaahay subxaana watacaala la isku xiro adoo ilaahay isku xiraya oo dhahaya ilaahay oo ilmahaygii iskuul baa u dirsaday adaan kugu ammaansaday haddana waa inaad dhiiran tahay oo ilmahaagu wacyigashan yahay ilmo wacyigashan maaragtay uu kaa baxo mas-uuliyadu way kala jiraan waalidku ilmihiisa mas-uul buu ka yahay qofkii xumeeyey ilmihii haddii inkeys la xumeeyo qofkii xumeeyey soo qabashadiisa iyo xisaabintiisa iyo haddii dowladda u taalo ka waalid ahaan adigana waxaa kuu taala inay ilmahaaga wacyigelisid
ilaalisid sababtoo haddaa ilmahaaga diyacdid waxna aada u sheegin iska fasaxdid dugsiga xilliga rabo uu aado xilliga rabo uu kaa maqnaado ilmihii xilliga uu dugsiga ka imaanaya xilligu aadaya kuu xisaabsaneen banaanada isaga ciyaaraya wax badan baa isaga kaa khaldamaya ilmihiina kuuma suurtagelayso inaa maaragtay noqotid qof dhiiran oo soo jeeda oo ilmihii og kuuma suurtagelayso marka bilaahi calaykum waalidku waxaa laga rabaa ilmaha inay u dhawaataan waxaa laga rabaa waxaa jira waalidiin badan oo guriga intay macalimiin ama dadka maaragtay barayaasha ah oo dadka dhibaatada ilmaha yarar u geysta ilmihii yaraa masalan qol baa la keenayaa waxaa la dhahayaa qolkaa waxa ku barto dadkii kalena way ka tegayaan way ka fogaanaya waxaa la dhahayaa suu ilmaha tarkiis u siiyo waxbarashada oo wax fiican u fahmo yaan lagu qaylin ilmaha qolka usoo riixda ama aagoo dhan uga tagtay oo macalinka uga tagtay wax baraya qofka baraha bis uga tagtay qofkii xumaan sameynaya si fudud buu ugu samayn karaa wuu dilayaa wuxuuna dhahayaa ma sheegi kartid ilmihii adigana wuu kaa baqayaa macalinkiina waa ka baqayaa bayna naareen buu ku noolyahay marka dhib haddii loo geystona kuuma sheegayo halkaasaa ilmaha noloshiisa dhan ku damirmaysaa maaragtay niyaddii kaga jabaysaa jismiyan xanuun usoo gaarayaa uu ku dhibaatoonaya marka aniga ujeedkaygu maanta wuxuu yahay aan usoo galay halkan dad dhibaato sameeyey inaan ka daba hadlo iyo ilmo yaroo dhibaato lagu sameeyey maxay ugu dhacdo iyo kulligan waa wada ognahay dhacdooyinka ugu dambeeyey ee dhacaya ilmaha yararka la dhibaateynaya laakiin muhiimadeedu ma ahan inaan maaragtay wixii dhacaba aan ka daba qaadanayo maaragtay hadlayo laakiin waxaan leenahay ka hor intayna nagu dhicin ilaahay naguma keenee waa inay ilmaha noo kala furayin indhaha noo kala furayin ka waalid ahaan ani asal hadda waalidiintaan la hadlayaa waalidow ilmahaaga wacyigasho dhibta soo gaaraysana adiga intayna soo gaarin ka hor ka maaragtay ka hortag waa ognahay wadankeena waa iska dhib badan yahay ilmaha waa la iska fasaxayaa iskuuladii bay iska aadayaan xilli ay soo soconayaan ma oga luuqa iskuulka guriga inta udhexaysa wax ku gaariya lama oga gurigii maybe in hooyadii dhib haysato ay shaqaynayso oo ka tagto saaka aroortii ka tagto dad qaraaba uga tagto imise ilmaha inta qaraabo guriga kula nool dhibaato u geysteen oo waalidkiina u sheegi karin oo halkaas dhibaato kasoo gaartay marka bilaahi calaykum ilmaha waa mas-uuliyad ilaah subxaana watacaala baa idin siiyey berina wuu idin weydiinaya dhammaanteen qof kasta waxay mas-uul looga dhigay waanayna weydiinaya ilmahaaga intaan dhibaato soo gaarin ka hor isku day inuu calal aqal wacyigashan yahay oo og yahay dhibta ku imaan karta ilmaha u sheeg iskuulka markuu aadaya suuliga markuu gelaya hadduu suuli iskuulka gelaya soo xiro dheh yaan lagu taaban dheh yaan surwaalka lagaa siibin dheh macalinka iyuuna waqti gooniya maaragtay dugsiga kahor hadduu ku dhaho haka yeelin yani ilmahaaga teda kale dadka aa maaragtay ma kala garanayno cidda u geysanayno iskuullada dad baa iska dhigaya maaragtay malcaamadii sidoo kale dugsiyada dad baa iska dhigaya ma garan kartid wuxuu yahay qofkan ma macalin ba ma mudaris ba ma kala garan kartid ma bare caadi oo doonaya inuu maaragtay dee halkaas shilimaadkiisa ku qaataa oo aan ilmaha dan kala heenba ma garan kartid mise waa qof mucallin ah oo u tababaran ilmahan inuu waxbaro oo sida waalidkiis oo kale ahba ma garan kartid sidaa darteed ilmahaaga waa in aad wax u sheegtid oo wacyi gelisid mas-uuliyad baa kaa saaran ilmaha maaragta waa inaa indhaha u kala furtid waa inaa dhahid saasaysa haddii kugu dhaco saa samee saa haddii lagugu sameeyo iisoo sheeg ha iga baqan laakiin ilma aad dilaysid ogow inuusan kalsooni kugu helaynin oo wax kuu sheeganaynin ilmahaaga markaas si ladifan ula hadashid oo sasabatid oo saaxiib ka dhigatid wixii ku dhaca uu kuusoo sheegaya ma rabin inaan ilaa intaa codka dheereeyo khayr fara badan baa idiin rajaynayaa ilmuhu waa mas-uuliyaddaana ilaahi subxana watacaala waana weydiinaya beri haddaa dayacno waxaa loo baahan yahay in aanu marka indhaha kala furno macalimiintu ma wada xumaa kelmadda aan kusoo celcelinayo oo ah macalin baa ilmasaa u galay macalimiintu ma wada xumaa xaashaa laakiin waxaa jira dad macalinimada kusoo doontay qutulyoonkooda oo laakiin iyagu dad xun ah ayaa jira dadkaasna ilaahi subxana watacaala hanaga qabto ilmaheenana ilaahi hanoo nabadgeliyo hanoo badbaadiyo laakiin mas-uuliyadda ka waalid ahaan ina saaran waxay tahay in aanu ilmaheena wacyigashano intaanaan dugsi u dirsan iskuul u dirsan ayaa loo baahanya inaan ilmaheena wacyigelino asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu